duqeymo xagga cirka ah ayaa ruuxay dekada istiraatiijiga ah ee Ukraine ee badda madow ee Odessa ee koonfur galbeed. Qaraxyada kadib waxaa la arkayay qiiq madow ah. Weerarka ayaa imaanaya iyadoo ciidamada Ruushka ay u muuqdaan kuwo ka baxaya waqooyiga dalkaas. Odessa waxaa laga soo weeraray hawada. Anton Herashenko oo ah la taliyaha wasiirka arrimaha gudaha ayaa ku qoray akoonkiisa Telegramka. Dab ayaa la sheegay. Qaar ka mid ah gantaalada waxaa soo riday difaaca cirka. Magaalada taariikhiga ah ay ku nool yihiin ku dhawaad 1 milyan oo qof waa dekada ugu weyn Ukraine ee badda madow. Jimcihii madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky wuxuu uga digay Ruushka inuu xoojinayo oo uu diyaarinayo duqeymo xoogan oo dhanka koonfurta ah. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka Poland ayaa ku eedeeyay Faransiiska iyo Jarmalka inay aad ugu dhow yihiin Ruushka. Wareysi la daabacay Axadii isagoo cambaareeyay habdhaqanka Berlin iyo ku wajahan Moscow ka hor weerarka Ukraine. Jaroslaw Kaczynski oo sidoo kale ah hogaamiyaha xisbiga talada haya ee sharciga iyo cadaaladda BIS ayaa u sheegay wargeyska Die Welt Jarmalka iyo Faransiiska waxay u janjeeraan dhanka Moscow. Kaczynski wuxuu badbaaday ereyadiisii ugu xoog badnaa ee Berlin sanadihii la soo dhaafay. Dowladda Jarmalka ma aysan doonayn inay aragto waxa Ruushku sameynayo ee uu hogaaminayo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Waxaanan aragnaa natiijada maanta ayuu yiri Kaczynski. Dadka rayidka ah ee ku nool gobolka Bucha ee dalka Ukraine una dhow caasimadda dalka Ukraine ee Kiev ayaa laga helay meydadkooda iyagoo gacmaha ka xiran sida uu sheegay Mikhail Podolyak oo ah la taliyaha madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky. Bucha gobolka Kiev meydadka dadka gacmaha ka xiran yihiin ee ay toogteen askarta Ruushka ayaa daadsan wadooyinka ayuu Podolyak ku soo qoray bartiisa Twitterka. Dadkani kamay tirsaneen ciidamada wax hub ah ma aysan haysan wax khatar ah ma aysan keenin imise kiis oo kale ayaa hadda ka dhacaya dhulalka la haysta ayuu ku daray.